Elvis Media Production. horta madaxweynaha wuxuu cilaamiyay isxilqaan qaran oo dhismaha ah anigana waxaan cilaamiyay isxilqaan taakuleen oo gabdhaha Soomaaliyeed iyo isbitaalada hooyooyinka arrintaas waxaan rabaa inaan hirgeliyo tuulo walba magaalo walba gobol walba inaan ka hirgeliyo isxilqaan haween oo gabdhaha Soomaaliyeed iyo isbitaalada ay ku dhalaan iyo dhalaankooda waxaan u maleynaa inaad dhihi doontiin waaw marwada 2 sano lama arkin hadda waxay ka soo baxday sheel 2 sano isxilqaan madaxtooyaha ku jiray hadda waa dhameyn rabaa madaxtooyadii tii waxaa ii hartay haweenka marka ilaahay ha la garab galo markii igu darneed oo madaxtooyada imid waxaa maalin soo wacay islaamo hooyooyin oo wadanka jooga markaas waxay dhaheen eedo lacag qaarana laga rabaa qaarana ku soo koray weliga bixi jiray waxaan eedahay yaa loo abuurinaa gabdho Soomaaliyeed isku go'ay jir fawziya maalintay Maryam dhimatay ayay fikradda la timid inay dhisto ana maalintay naagaha ugu dhay islaamaha ugu dhaheen gabdho Soomaaliyeed isku go'ay mucjiso ay noqotay because waxa daada arkay dib ku taaban ma fahmi kartid markaas aan meeqo 200 maalintaas aan go'aansaday inaan anigana hadii Ilaahay ilaa aan sameeyo foundation oo aan dhiso 40 MCH aan weliba ka sameeyo 18 gobol oo Soomaaliya ahaan jirta marka waxaan rabaa gabdhaha isku tashtaan hadda fikradaada iyo cadaatay oo sheekadana isxilqaanka taakuleen every month ya qabanaa gobolada North America Europe tabcan yaa ceel qoday ka Maxamed raga saas u bal lacag u qaadi doona hadii Ilaahay yiraahdo si kala mala gabdhaha hoo isku tashta aniga diyaaraan ahay aniga laftigayga 40kaas MCH Ilaahay u garab galo waxaan hadda lacag gacanta ku hayay male waa sida Fawziya ahay hadda laftigeeda rabaa dabagaabina u qaato marka aan isku tashano raga si kala wax uga qaadi karno inaan casho yar inta u sameeyno aan ugu wacno meelaha